السلام عليكم أصحابكم حرن channelka qanciyo official waa idin salaam dhamaantiin saa wada dhantihiin haddaba ku soo dhawaada fiidiyooga aan maanta idin wado waxa waaye fiidiyooga wax kale ma ahin saaciibaan kor aad soo aragteen fiidiyooga shalay ilaa maanta baraha bulshada saas iska daaw wareegoy dadkii isqabi jiray lamaanayaasha ahaa jiray oo kala tagay waxa rabaa hadal ka kooban inaad soo qaato أنا أهاني إذن كان وحي فكرة أقمنا أكو درسون إن شاء الله يعني هذا كنت كدالين وحاسي قد قلينا فيديو قاعدين وضو بلسي حتى أنا قو عصب تهي هنجي إلا من channel كنا سبسكرايب نو سارتيد سيدو كل أنا قو دير جلس لاك تاد وإنو دير جل أدي هذا ما سنتهي وهران وحاسو قاعدين هنا فيديو رسم الرئيس صادق تشلي هو يلا سدحي 8 ساعة ساعدان رياكشن كان بيحنونه سدحي 8 ساعة دو يلا سو مع الورج الكا كبت بقول لا وطني تدو كنا عند دابت سدحي 8 ساعة بس انه يلا marka Soomaali Maxamed warjecel la u sheeg adi waa la soo wada orda meeshii adiga xanyariis lagu arko markay hadalkeedu ku daalin waxa si gudu galeena fiidiyoogaas hadalka ka koobanaan soo qaadanaa ma soo wada qaadan karno koos wuxuu socdaa 18 minute marka macquul ma noqonayso 18 minute ina soo wada qaadan macquul ma noqonayso afaafa ka soo qaadanayna insha Allah asla daawan marka barnaamij waxa jiray ani aan sahay waxa dhalay بنتاد maahan fiidiyoogan waxa ka horeeyay fiidiyo kale week kor ay soo dhigtay ee dhaheeso wiil yariis aydo kor ku hees wiilkaana dhalay maalintaasna waxay ku beegneed maalinta beenta adduunka marka aan maalintaas ma ogeyn ala kulli hal fiidiyoogaas ani waa soo daawaday saa'ila tahay fiidiyoogaas marka waxaan dhan dhibaatadan dhan keenay oo dhaheeso canugan ana dhalay canugan gabar walaasheeda dhashay sheegtay marka asla daawano full days maalinta beenta adduunka cid walba reer magaal ay cid walba aqli qabto صح ومسكحدي اشقينيسو صح وي ogtahay teeda kale aan rasmi ahaan hadaan been sheegay maalmaha ka horeeyay ama bilooyinka ka horeeyay ayaan been sheeg lahaa Soomaali Maxamed kood waxa waaye dad la qiyaani karam dad been loo sheegi kara ma ahan dadka YouTube-kayga ku xiran ama aan rasmi ahaan ku xirno dad aan jecelahay agtooda aan sharaf kale yahay mar walba iyo dagaal iyo dhinto haddii ayaga ahayn Soomaalida hadaan ka dhalan lahayn anu mar walba iska dhiman lahaa so alxamdulillah ku faraxsanayna Soomaali Maxamed ka dhashtay oo ayaga aan gabadhooda ahay beenna u sheegay inaan xumeeyana ma aan laakiin dadka YouTube-leyda badana waa aragteen way jiraan barnaamijyada la sameeyo wax walba lagu sameeyo even qof walba fikirku keensadaa fikir u aad this is prank ee nagu sameysay marka prankigaana see u rabtay way u noqotay koos waxay ratay ninka ay kala tageen inuu macnaha oo stress oo ku furmo oo soo waco anug ma ii dhashay iyo sheekadaas ay ratay waan u hirgashay ninkii uu soo wacay uuna weydiiyay anug ma ii dhashay maxay igu sheegi weysay hooyada maxay igu sheegi weysay adiga ninka stress ay ku furtaaday intaas ay rabtane ku soo laakiin prank waa la sameeyaa aad ma ka soo dhigay ana cuniga dhalay dadka waxay dhahayeen April Fool Day waaye so hadda ani rabo ina been sheego oo beenta sii wada waa soo hadlaa waxa dhila April Fool Days ma ahan waa run arinta aan sheega tada kale arinta hadday runta April Fool Days ka hor soo galan lahaa anigoo dumar dhibkii dhibaatada la ii geystay waan dabool waan qariyay laakiin waxa waa imtixaan dadka qaar mar aqligooda waa la tijaabiyaa والله أرتقي بدن فيديوغان أنا واحد بس ساكا داودي أرورتي داودي ساكا فيديوغان جبدان سكوشكتي والله دباتوين بدن أكون عسي شيء ما أركتني أيضا دباتوين كسب بندقة سوا مايا إلا هذا حتى وين قرنوسا هذا حتى أو عمل مرويس معنا ننكي هستا waxay u ballan dhahay waxa soo bandhiga jirdilki iyo wixii ay geysatay macnaha sawiraha ay dhahay sawiradaas aan dadka la wadaaga marka wax badan ay qarsiga bidaan beenta adduunka barnaamijka soo dhigay baarna TikTok-geeda wixii soo galisay sidoo kale ahilal iga qaatay was prank wax run ma ahayn prank ahil naxaf macnaha qof kale isla ogaayay sheekada oo aydan cunuga laga xadadheysay tan isla markaas cunuga dhalay dhahay marka dadka dhan confuse ku fureen oo waxay isdhaheen canugan la dhalay oo intaas bilowd jiro hadan la qarinay inaagta canug ka maqan yahay ayda ka xadaaw la iska soo jir rasmireesa waa canuga haday canuga ee wadan ayda ma dhalin oo soo xadaaw leh marka dadka in laga waalaal rabay waan laga waalay ku soo ana sidoo kale xafadan joogay wax cunuga aan dhalay ma jirto qof walba aqoon qaban uu og yahay week la soo dhaafay ama 2 weeks ago ina Mombasa joogay baashaalay raaxaysanay everybody way arkayeen ina maal baros ka tumay shaqaysanay aad marka kistaan asla daawano kistaan kalena waxa waaye asiga soo wacaayo oo macna wuxuu dhahaa canug ma ii dhashay iyo in canug loo dhal camal nink farxad iyo asi dhan isku qasma marka kistaan asla daawano oo cod ay ga duubtay YouTube kala soo farasatana ana hadda kule wax lagu dheelo waa istaasha waana kugu dheelay
فهمتي cunug aada hooyadiis ka warqabin si asaga uga warqabaysa brother ma la isku dheelaa horta ma laga hadlaa mise ciyaara la wadaa cunug aada hooyadiis ka warqabin ma aniga ma cunug ka warqabay hooyadiis ka warqabaysa ilmaha waxa ka horeeya hooyadii aabaha hadday is wanaajin waayaan ilmaha meesha wanaag uma yaalo mataante taasaa been ahayn hooyadii aabaha dee ayka oo macnaha khilaafka dhex taagan yahay ilmahana meesha waa ku dhumeen ilmahaas qusraana moobiyanna u soo baxday okay warkii yaan igu sii dheereynin ani cunugayga asaga gacantiisu ku dhintay because ani waa qarinayay asaga maanta in ani sheegay igu kalifay because brankigayga waa iska sii waday sifa asaga ugu dheelay maadaama arkay inuu calaacalaayo haa xitaa go-aanka ee hore usoo gaarto wuxuu ahay barankigaas 24 hours ka bacdi inay xirato ama ee bareefad ay ka dhigato marka waxay aragtay ninkii oo shabaq ku soo dhacay aasi dhan confuse garasmay oo dhahaya canug ma ii dhashiyo markay saas aragtaba qoftan si rabtay u noqotay marka ma uu ka bixin barankigi wuu ku sii jiraa hay waxaas dhahay ku dheel kan wax lagu dheel way istaaylaan teeda kale inuu doqon yahay inuu aqli qaban kala garan waayo cunuga uu ani jaraanjar iga tuuray aan dhiig baxay hargeysa aan 20 days ku dhiig baxay uu maqlaay uuna isoo raadin hargeysa dhexdeeda oo aan soo tago Nairobi maad gabadhi ma dhimatay ma nooshahay cunuga ma ku jira oo na dhihin ayuu intuu soo wixii ugu dhahoyaa maxay igu sheegays inaa ii dhashay subhanallah horta hooyadii canuga dhaleed horta ma ka warqabtaa canug inta la dhalin hooyadii canuga dhaleed xaaladeeda ma ka warqabtid bay brother ma fahanteen qof walba uu idareemi karaa aan meesha ka kululahay mise aan wax ka dareemayo nin shalay inta guursta asagoo shilin haysan aad wadankaagii dadkaagii gurigaaga inta uga tagtay wax walba noloshaada aabayleysay aad raacdo la guurtay abaalkaaga ka dhigo inuu dabada haraanti ka geliyo cunuga ka soo rido telefoonka ka qaato ka jijibiyo shilinka gacanta ku haysan wallahi ana dadkan waa ka maseeri jira wallahi markii aad daawo jira fiidiyoyaashooda si isku faraxsan yihiin war dadkan oo kale ilaahay ka dhigaa mar walba dhigi jira wallahi laakiin markii ay kala tagana arkay iyo waxyaabahan hadda la isla ilaafsanayo wallahi madaxa qabsada meesha ku yaaba fadhiya ilaa hadda ana brother waxa ku sheegaya das was prank intaante waa dhax fadhida prank 24 hours lagu talgalay adaa sii dheeray because adaa isoo wuxuu igu calaacalay marka igu calaacashay anigu waayaa wax isdhaay cuniga maxaa ka qaldan muriyonaya mise hadda la soo haya cuniga Soomaa kii jaraanjarta ka tuuray cuniga Soomaa kii ku dilay canug abalooya subhanallah wallahi nolosh ay ku jiro jireen iyo hadda xaaladda taagan cuniga Soomaa kii boostajada boorma inta ku keena dhahay meesha aadi kartid aad adigoo dhiig bixisa oo ooynaysid ka soo tagtay wajigii idin dhaxyaalo muxuu yahay hadda mar dambe aniga afaare ani aan leey ka soo hadashay inta waxood igu sameeyay on telefoonkii ugu jiro ayaa soo bandhigaya maanta waa awooday jugta ajirkayga u geysatay in aan soo dhigo social media waa idin sheegay qoftaan waxaa idin dhahay waxyaabo badan ay qarnoosaa hore u jir dilay oo ka jukay macnaha waxyaabo badan sawir ay haysataa in la dilo cadeynayo macnaha oo jir dil badan loo geystay marka waxay dhahday hadda isqawweys brother waa soo bandhigay taagan tahay aaga in la waayo waan awooda oo dhibka ii geystaa Soomaali magacaada in la waayo waa awooday dhahday waxay hees wax yar ma ahin marka dhigas Soomaali maxmed noo kala garqaada marka daraad xumeynaysa war gabar hadaa isku xumaataan gabaraa guursatay familkooda uga maatay waa ka soo doonatay si sharaf leh lagu siiyay wadankeeda guursanaagteeda raranayda nin naagtiisa uu raran karaa waa ay kaxisay hargeysa dadkii aan ka saayay fanaaniintii waa iga dhax bixisay boorama ay geysay inta waxa ay wadato inaa hilibkeyga jarjarto maan subaxda jaraanjarka iga tuuraysanay haddana maxaa dhijir kuusii joogi lahaa kaas xusulay haddaa qabato xusulay mas-uuliyad baa i saaran mas-uuliyadda gabadha aa ka kaxaysa Nairobi oo aa wadankiina geysay oo wax walba ay wax qabsanayd ka jibisay cuniga caloosheeda ku jira aad dishay jaraanjar aa kasoo tuurtay aadan kasoo wardoonin mas-uuliyadda cuniga la dhalay kaa fuulaysa maxay tahay abo macaan hal waana ku siinaya listen to me okay hay dhageyso brother mas-uuliyad wax kuu tarayso oo aabanimo aad daneynaysid kan aad qarinayso oo kuu joogo Djibouti gabadha macnaha anigu dhalo qarinoya macnaha that's crazy inta dhashay caanaha kaaga baahan kaasi bil oo kaasi aabo u noqo rasmi kuma baahno mafahamtay hataa idan maanta ku dhal lahaa anigu kaama sugeen caano kaasa kaaga baahan inaad bishida brother kaasi bil teeda kalma ka dhis ilma may dhalan alxamdulillah ma dhalismihi guumeysnu mihi anoo yaraan shaqaysta waan dhalay waan ku faanaa xilli magacayga aan la garanayn oo social media laga kaseen ayaan dhalay social media waxaa soo galay anoo wiil dhahay wiil baa ii jooga Muzamil Allah ii daaye ayaan social media la soo galay waa kugu soo gamay cunuga u dhalay inkiray ee glaaska caanaha u quurin waa adi
teeda kale adaa u baahan inay mas-uul lagaa noqdo glass caana lagu siiyo maxaa ilmo wax siisaa adig بس كده ولا هكون فوقان marka kuwaad shaqayso adiga marka kuwaad noloshaada kaafi markaas rasmi hoos u soo fiiri qof kaa sarreeya weliga kor lama fiiri ma fahamtay so cool down mar dambana erey rasmi laga kama maqli kari guys idinkana waan salaamayaa asxaabta qaaliga meel walba joogtiin waan jeclahay qalbi you know everybody ogyihiin in prank la sameeyo prank wax hadda igu horeeya prankina waa ka waa asaga dartiis because qofka dhaqanka ee waa lagu dheelaa qof xilihiisa daryeeli waayay ogaani waay in lagu dheelo wuu istaahilaa soo Soomaaliya hadda ila qabtiin waqas hadii ila qabin waa idinka qaldanahay wax qaladin sheegan وقلت قرانكاني قرا دغلنايا تاس واس برانك على كل حال واصل دابني waan idin sheegay prankii ahayd waxa ay sameynaysa gabadhan marka ala kulli xaal marow fiidiyowga inaa ku sii dheeraado waa isla wada daabanay marka waxa idin leeyahay ragow gabdha hal qadariyo oo hal ixtiraamo fiidiyowga marow inaa ku sii dheeraado waxa idin leeyahay fiidiyowgan fiidiyow ku xog inta kulmi doon insha Allah anigoo caafimaad qaba iyo adigoo caafimaad qaba sidaas iyo amaana Allah bye bye